xildhibaanka hore ee laga soo dooran jiray deegaan baarlamaneedka Lugari Cyrus Jironga ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka Karai ee magaalada Naivasha. wararka ayaa waxay sheegayaan in Cyrus Jironga uu isagu waday gaarigiisa isagoo ku sii jeeday gurigiisa miyiga ee Lugari markaasoo gaarigiisa uu si toos ah ula galay shil iska horimaada bas ay leedahay shirkadda Climax Coach wadada weyn ee Nairobi iyo Nakuru. taliyaha baarista dambiyada ee Naivasha Isaac Kiyama ayaa xaqiijiyay shilka waxaana uu sheegay in Cyrus Jironga uu ku geeriyooday goobta shilka baar saacadu markay ahayd 3 aroornimo. booliiska ayaa tagay goobta shilka iyagoona qaaday tallaabooyin laga maarmaan ah. meydka marxuumka ayaana loo qaaday qolalka meydadka ee cisbitaalka Naivasha sub county si baaritaano loogu sameeyo halka labada gaari ee shilka markaasi ku lugta lahaa iyagoona la geeyay saldhigga booliiska iyadoo baaritaano ay wali socdaan. Garida Cyrus Jironga ayaa gilgishay saaxadda siyaasadda ee dalkani Kenya maadaama uu ahaa siyaasi si weyn looga garanayay gobolka iyo galbeedka dalkani Kenya. darwalka baska shirkadda Climax Company oo ku lugta lahaa shilkan sababay garida xildhibaanka hore ee Lugari Cyrus Jironga ayaa ka warramay go'aankii degdega ah ee uu qaatay si uu u badbaadiyo 65 rakaab xilli shilka u eka mid aan laga baxsan karin. darwalkan oo lagu magacaabo Tyrus Kamau kana shaqeynaya shirkadda basaska ee Climax muddo 8 sano ayaa sheegay in uu ka yimid magaalada Nairobi kuna sii jeeday magaalada Busia marka uu shilka dhacay baar 3 aroornimo ee Sabtidii. Kamau oo la hadlay wariyaasha isagoo ku sugan saldhigga booliiska ee Naivasha ayaa waxa uu sheegay in gaariga Mercedes Benz lambarkiisu yahay E350 oo ahaa midab cad oo markii dambe la xaqiijiyay inuu waday Cyrus Jironga uu si lama filaan ah u soo galay jidka. gaariga Mercedeska waxa uu ka soo baxay saldhig shidaal oo ku yaal wadada weyn aniguna waxaan ka imaaday Nairobi kuna sii jeeday Busia. darwalka Mercedeska ma siinin wado wuxuuna go'aansaday inuu soo galo jidka maadaama traafikada ay jireen dhinaciisa iyadoo 65 qof ay ku tiirsanaayeen. kama waxa uu sheegay in ilbiriqsi gudaheeda uu fahmay in haddii uu si xoogan jidka uga leexdo uu baska rogman karo. waxaan waday 65 qof markii aan isku day inaan ka fogaado shilka waxaan garawsaday in baska uu dhici karo markaas ayaa go'aansaday in aan badbaadiyo 65 qof. Kamau ayaa go'aansaday inuu qaabilo jugta shilka dhanka hore ee baska halkii uu qatar gelin lahaa in baska uu rogmado taasi oo keeni lahayd khasaare naf intaasi ka badan. shilkan ayaana burburiyay qaybta hore ee gaariga Mercedeska uu waday Cyrus Jironga wuxuuna intaasi ku daray inuusan ogeyn cidda gaariga waday ilaa ay booliiska yimaadeen. ma aanan ogeyn cidda uu ahaa balse markii booliiska yimaadeen ay ii xaqiijiyeen inuu ahaa Cyrus Jironga. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station na mimi ninatoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugive akaamua kuja penye niko tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Wakati nilijaribu kuokoa nikasikia gari yangu inaenda chini. Sasa mimi nikakanyaga akakuja kama ameniingia. hadalka Kamau ayaa muujinaya go'aamada adag ee darawalada ay la kulmaan marka ay dhacayaan xaalado degdega gaar ahaan marka nolosha dad badan ay halis ku jirto. baaritaanada ku aadan sababta dhabta ee shilkan ayaa wali socda iyadoo tacsiyo iyo tiraanyo ay dirayaan guud ahaan shacabka dalkani Kenya. madaxweynaha qaranka dalkani Kenya Dr. William Samoei Ruto ayaa Cyrus Jironga ku tilmaamay nin dadaal badan ganacsi khibrad leh iyo siyaasi aan marnaba u ogolaanin caqabadaha nolosha inay lagdaan. hogaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa isna sheegay in Jironga uu ahaa hogaamiye geesi ah oo soo jiidasho leh kana mid ahaa dadka aan ka baqin inay ka duwanaadaan kuwa kale una istaaga aragtidooda si kalsooni iyo geesinimo leh. waxaa sidoo kale geerida Cyrus Jironga ka tacsiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari oo uu horkacay wasiirka caafimaadka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale iyo sidoo kale xildhibaan Aadan Keenan. wasiir Aadan Ducaale oo qoraal tacsiil ah soo dhigay barihiisa bulshada ayaa la wadaagay shacabka Kenyaanka geerida xanuun kale waxaana uu yiri waxaan nasiib u yeeshay in aan la soo shaqeeyo marxuumka anigoo xildhibaan ah markii ugu horeysay ee aan galay aqalka baarlamaanka sanadkii 2007. waagaas hore waxaan la kulmay nin leh garasho siyaasadeed oo feejigan xasuus hay'adeed oo qoto dheer isla markaana leh joogitaan si gaar ah looga dareemi karo marka uu joogo aqalka baarlamaanka. iyadoo geeridiisa ay tahay mid xanuun badan haddana waxaan alla uga baryaa inuu samir iyo qalbi qaboojin siiyo qoyskiisa asxaabtiisa iyo dhammaan inta safarka noloshiisa la wadaagtay ayuu yiri